سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين كوي آمنوا رميانو لا ترفعوا أصواتكم صوتيالكين هكريلنا فوق صوت النبي صوت كيسا هكريلنا ولا تجهروا هلجهرنا له النبي بالقول قول هكول جهرنا كجهر بعضكم قاركين جهردي سوكل لبعض قارك كلو لجهري. آيادان waxay u tilmaamaysaa dadka mu'miniinta kolkay golaha nabiga joogaan sidii ugu haboonaasho badan inay nabiga kula hadlaan oo kula mucaamaloodaan. Ilaahay wuxuu leeyahay markale asagoo dadka mu'miniinta u dhawaaqaya sifada iimaanka ugu dhawaaqaya war dadka rumeeyeen oo Ilaahay rasuulkiisa rumeeyeen dhawaqiinaya hadaladiina ha koryeelina nabiga hadalkiisa ka koryeelina markii aad meesha nabiga golihiisa joogtaan edab inayna ahayn baa la tusaaleynayaa in halkaas lagu booqo oo nabiga sawdkiisa laga koryeelo oo sawd qalifsan oo dheer lagu la hadlo inayna ixtiraamka iyo aadaabta ahayn ayaa dadka mu'miniinta la tusaaleynayaa. ha koryeelina hadaladiina iyo dhawaqyaalkiina nabiga hadalkiisa iyo dhawaqiisa ha ka koryeelina hana la jahrina nabiga hadal qowl ah kula jahrina sida qaarkiin qaarka kale uu la jahrayo. waxaa la tusaaleynayaa dadka mu'miniinta nabiga Ilaahay uu soo diro rasuulkiisa ayagii nabigoodii hogaaminaya inayna u haboonayn sida qaarkood qaarka kale oo dadkaas isku faca sida isula hadlayaan isugu buuqayaan hadalka isugu koryeelayaan sidaas oo kale inay nabiga golihiisa ku haboonayn ay ku haboon tahay inay ka dambeeyaan inay u khuduucaan inay muxuuha iska ilaaliyaan wax golaha nabiga edebta wax u dhimahayo dhan. hala jahrina Ilaahi leeyahay nabiga qowlha kula jahrina sida qaarkiin qaarka kale la jahrayo sidaas oo kale nabiga hawla jahrina anta habada khashiyata anta habada in ay hoobato acmaalukum acmaashina ay hoobato ka cabsashadeeda wa antum hal la tash'uruna idin ogeyn amalkiina hoobashadiisiina idin ogeyn. waxaa la tusaaleynayaa haday ixtiraam la yimaadaan halis inay u tahay ama gaarsiinaysaba waxay amal lahaayeen inay burayaan oo nabiga waxa weeyaan Ilaahay agtiisa wuxuu ka joogaa qiimo weyn weeyaan rasuul Ilaahay uu doortay weeyaan khalqiga oo dhan uu ka doortay u soo diray markaas ixtiraam daridii loola yimaado waxay halis u tahay dadkii ixtiraam la yimid acmaashoodii oo dhan inay burto. كعبسشو كعبسانيسان أعماشين إني برتو سداس صوتكينا أكريلنا وأنتم حالا تشعرون إني أغين وعملكين إني سدا كبرين ورئيدا أهين. إن الذين كوي يغضون رارعين هيان أصواتهم صوتيا رارعين هياني هذا اللضوض عند رسول الله رسولك أكتيس هذا الكرارعين هيان وهذا الكهوس ولغا هيان إلا الجهرين سيدا إله رال أكيه أفرتوم هيان. أولئك كوا الذين كوي امتحان الله إلهي وجربيه وامتحاني قلوبهم قلوب توضى للتقوى التقوى وامتحاني لهم وحيليهن مغفرة ذنب دافد بيليهن وأجر أجر بيليهن عظيم الأوين. مؤمنين توحي هاين نبي الزبن كيسي عليه الصلاة والسلام كوا حد بسدي إلهي أولي حيو أولي حنهي أي هاين أدبتي قرآن كوفرهيو إلهي كوفرهيو كو راعهي أي هاين haddii ay kolka hore sawdka nabiga agtiisa ku koryeeleen markii laga nahiyay oo la yiri nabiga agtiisa sawdka ku koryeelina waxay ahaayeen markaas kuwa oo sawdka hoos u dhigaya nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam agtiisa oo si aadab ay ku dheehantay nabiga la hadlay kuwa sidaas xaalkoodu waxaan Ilaahay uu ku amaanay oo wuxuu yiri kuwa
hadalladooda hoos u dhigahayaan rasuulka agtiisa kuwa waa kuwa ilaahay quluubtooda uu jarrabay oo imtixaanayo taqwada uu imtixaanay macnaha waxa weeyaan kuwa quluubtooda ilaahay uu diyaariyay oo u saafi gareeyay oo wax alla wixii qas quluubtooda ahayo iimaanka iyo rabbi ka cabsiga ka qasi lahaa ilaahay uu ka tamxiisiyo ka ka saafi yeelay cabsida ilaahay uu qaali yeelay oo saafinimadii rabbi ka cabsiga quluubtooda kuwa ilaahay u saafi yeelay weeyaan waxayna leeyihiin dambi dhaafid bay leeyihiin ajir weyn way leeyihiin kuwa xaalkoodu sida uu yahay in nabiga ixtiraamayaan haddaba sawt hoos u dhigaas dadka mu'miniinta ah waxay sidaas ayagoo ixtiraamka ay sida ilaahay faray ilaalinaya hatta markuu dhintay dabadeedna sidaas bay mu'miniintu cadadoodu ahayd oo ilaalin jireen nabiga qabrigiisa agtiisa waxay ka ilaalin jireen in ay sawtka ku kor yeelaan bal noloshiisa iska badaayay geeridiisa nafsadeedii qabrigiisa kulkay ag joogaan waxay ahaayeen kuwii oo sawtka hoos u dhigayo ilaalinaya aayadaas macnaheeda ku dadaalaya siday ugu camal fali lahaayeen مرحبا يا نور العين مرحبا يا خير الداعي مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا خير الداعي مرحبا جاد الحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ماجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يا أسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور من رأى وجهك يا أسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور مرحبا يا نور العين مرحبا يا خير الداعي مرحبا جاد الحسين مرحبا